hibe Rabbi siiyey iyo hawl adag oo galay kadib waxa uu ku guuleystay inuu hal abuuro oo uu sameeyo qaar ka mid ah hubka ay ciidamadu ku diriraan. Samaynta hubkan iyo qalab kale oo uu ku sameeyay gudaha magaalada Hargeysa ma aha mid uu bartay oo uu galay goobo waxbarasho balse waa hal abuur uu dadka kala dheer yahay. أنا أقول لك إن سكول لما قلنا سكول وان قال لكن وحنا هساقط ما ونفسني حاجة دائما كقول شيء كلاسك دوتنا سكول أنا سومر المشروع دور يسود سكول أيام سومر هيسو بيد عاو محايا فارس جولا ما صور مرة هذا حاجة ما كذا دوتنا كتير إسلام دو حلي ولي علم كمان إيبا أنا جاي قرنين با أولي لا يجي وقدرين ومقارنة wuxuu fududey tooso wax iyaalo waxaan anigu arko inaan sameeyo halkan aan ku suganahay waa mid ka mid ah garashada lagu sameeyo albaabada taangiyada iyo sidoo kale dhammaan waxyaabaha la laxamado ee biraha quseeya waxa ka shaqeeya Axmed Ismaaciil Xasan waa hal abuur soo sameeyay isla markaana hadda gacanta ku sameeyay haday noqoto hubka qoryaha koofiyadaha lagu talagalay in laga gaashanto xabadaha amba faleedhada jaakadaha celiya xabada Axmed Ismaaciil waxa uu shaqadan ku guda jiray muddo ku dhow 50 sano faahfaahin ayuu naga siin doonaa waxa weyn shaqadan marso waxaan galay anigoo yar inaan hayba shaqadan baray dabeetana shaqadii markuu la baray inay yaro fudud baan hayo ayaan wax u baqman jiray marka gacan fududina waxba ii kordhisiya magaranaysa ay darashadii iyo soo magaranaysa daacadnimadii caruurnimada marka isla markiiba 3 bilood oo ku jirin ayaa dursada la qoray business yar waan shaqada mugtahay marka waxaan ku bartay 6 bilood baa ayaa gacanta liigu sii daayay sidii baan ku wado meelo badan baan ka soo shaqeeyo tiyaatarka xitaa furaasi tiyaatarka laami jirtay ninkii hindisay baan ay sameeyay waagii hore marka ha kaba qaban DDG waxaan shaqooyin badan qabto kuna kamid ah xakamaynta armiga seefiga fudud ayaa kamid ahay marka in badan meelo badan ma ka soo shaqeeyay hibaduna waa gaaro waxa weyn wax ilaahay uu qofka galiyo oo gaara oo qofba magaranaysa gabayada saa ruuxinayso waxba ka qoran isaga waxba kale loobin isaga aan ugu ligin iskuul lama gelin iskuul waan galay laakiin waxaan hasaaqid ma wanaagsanay xaga dima ka gali jiray kalaaska دوتنا سكول أنا سومر المشروع دور يسود سكول أيام سومر هيسو بيد عاو محايا فارس جولا ما صور مرة هذا حاجة ما كذا دوتنا كتير إسلام دو حلي ولي علم كمان إيبا أنا جاي قرنين با أولي لا يجي وقدرين ومقارنة وحلي فيديو توسو wax iyaalo waxaan anigu arko inaan sameeyo taayim ka aan hayo 230 inan ayaa laga qaaday taxan DDG oo anigu markii 2 iyo 3 ba soo galay Axmed hadan su'aashii xigta ku weydiiyo markii aad iskuul ka soo baxday soo gashay farsamada gacanta shaqadan hadda aad ku jirtay dhinaca laxamada iyo sameynta biraha haday noqoto kuraasida taangiyada muddo imsa sanad waditaa waxaan waday 50 sano ayay ka shaqeynay kunta ka sano ee aad ka shaqeynaysay laxamada waxyaabaha adigu soo saartay maxaa kamid ah barsharaxad naga sii qalabkan waxa kamid ah gaar ximaarada qoladii sameystaan ugu horreeyay gaar ximaarba ee waqooyiga qoladii ugu horsameystaan albaabadan qoladii ugu horsameystaan oo cilmitiin odil warin jiray ee mushaqayn jiray odaygaasina odayga galbeed u hayo wuxuu ku ina xasan ku wadada weyn ee dahabshiil hormarta marka laga yimaado saldhiga ina xasan ku deeraha oo dhaadheer albaabada ku jira waa kuwan sameeyay 40 sano ka hor ayaa ugu jira anaga gacanteeda ku sameeyay tan wata baastooladeeda ku jirta oo magaranaysa anigu aan lahaa oo furfuran ayaa ku jirta waa iska baastooladu
markaa tan aniga dabeetana qaatay oo anaga qaadanaya anaa tan markaa qaatay oo geeriskaygaan ku ilaaliyaa tan ma garanaysaa gaarina way igu jirtaa aniga tan leh markaa isagu wuxuu doonayay noocan imika nooca ayuu isagu doonayay wuxuu noocaasaan doonaya sanduuq baan doonayaa sanduuq ayaan doonayaa dabeetana waxaan anagu fikiray oon shirkadadii ku darsaday sanduuqan inaan baastoolada sii dhex dhigo waa taa kaas waa sanduuqaasuu isagu weydiiyey anna waxaan ugu daray taa oo baastooladii ku dhex jirto sanduuqaasoo baastooladii ku dhex jirto baastooladii nootaa ku dhex jirta wataa baastooladii wataa markaa gaalku uu la wareeray uu la tacajabay yacnihii wuxuu yidhi maxaa fikirkan xaggeed ka keentay isaan ku yidhi dee fikirkan waxa ilaahay ii dhiibo aniga igu dheliyey aduu sanduuq baad daltay laakiin waan kaa macaaniinaya sanduuqan waa la xadi karaa oo waa la qaadan karaa tanoo qaliya haddii la dhigana baastoodo ahaan baa loo qaadan karaa taana iyo waxa weeyaan qoriga waxaa loogu talagay aakayga ee guriga kuu yaalla adigaaga laftaada inaad intaad saa u soo qaado oo sidaa isagoo ah aad sidaa u geliso qorigii oo sidaa ugu xidho dabeetana saa xaggaa ugu qufusho kan waxa weeyaan waxaan ugu talagalay moobilka ayaan ugu talagalay markaan shaqaynaya iyo markaan magaranaysa intaan si aayar ugu rido ayaan si aayar ugu xidhanayaa dhag xagga aan ka shaqaynayo ayaan ku xidhanayaa aan ku qufulinayaa dhag maca xadhigga halkaasuu igu jira tani waxa weeyaan qasnadii qoriga maxaa yeelay crashofa ee ciidamada waa qasnadiisii dabeetana aan sameeyey waxaan ugu talagalay ciidanka qaranka koofiyaddan waxa weeyaan ciidamada ugu talagalay qaar horena way iga qaateen oo waxa hayaa taliyaha hayaa fooqay taalaa ma garatay tani waxa weeyaan noocii hore ma garanaysaa ingiriiskii weeyaan tani tii laakiin uu sameeyey maxaa ahayday uu sameeyey tukrigu taana iyaduna way qaateen oo waxa jirankaa loo geeyey saasaad odanaysaa waxa weeye waa jaakeedkii xabadda celinayey waxaan ugu talagalay ciidanka qaranka ee magaranaysa jiidda hore ayaan ugu talagalay 2 mid baan ku ridnay oo kay noqotay way ka danabkaceen 2 midba 2 xabadood oo midna 70 talaabo u jirno midna 100 talaabo u jirno ayaan ku ridnay oo kay noqotay halkan waxa ku jirta waa qasnadii ku qaadanaya waxa weeyaan taydan waa 12 kiilo taa ciidanka qaranka loogu talagalay istaana qaar baa 50 qaar baa 25 saasi ku culisiin taydan waa 12 kiilo qorigan waa 7 waxaan doonaynay isagoo badan in miyiga lagu soo maro laakiin tiise waxaan markii uu gubtay bacduhu ayuu naga hagaagay fashadadii dabeetana aan ugu talagalay xaggaasaa lagu shubay bacdaha dabeetana isagoo waxaan ku lumayno xilli kale laakiin xabadan saamulka ay noo qaada dabeetana jiranka aanu geynay jirankaa haya markaa qorigaas ma dhacaya wuu dhacayaa wuxuu dhici waayey waxa weeye haddii lagu dadaalo wax walba sidee noqonaya injineer axmed kuma koobna agabka ciidanka balse sidoo kale waxa uu sameeyey cagafta beeraha lagu qodo oo uu farsameeyey iyo sidoo kale haanta la isku dhex geliyo haruurka iyo sunta baashan waxay weeyaan magaranaysaa haruurka ayay iyo sunta xawayaanka lagaga celiyo shimbiraha iyo waxaa lagaga celiyo haruurka marka la beeriyo ayaa shinnida ka celisa xawayaanka marka waxa weeye haruurkii baad soo qaadaysaa haantaad ku shubaysaa dabta haantii markaad ku shubtay haddana shinnidii soo qaadaysaa waad ku shubaysaa suntii in yurubiya baad ku siixinaysaa haantaasaad dabadna ku daboolaysaa waad wareejinaysaa waad isdhex gelinaysaa dabta si ay isku dhex galaan haruurkii iyo isku falqaataan haruurkii iyo suntii ayaad isdhex gelinaysaa markaad ilaa dhowr daqiiqad wareyso ayaad hoos jeedinaysaa marka albaabkeeda hoos u daloola ayaad dabtana inaad ka furaysaa haruurku wuxuu kugu daadanaya tashtigaagii aad ugu talagashay inuu haruurku kugu daato qaabkan anigaa hindisay markii madaxweynuhu fuulay kursiga uu 3 bilood hayey
madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi uu yidhi beeraha waa inaynu u dhaqaaqnaa oo wax soo saar yeelanaa oo inuu magaranaysaa wax la soo baxnaa ayaan maxaad kaga qaban kartaa haddaba maanta beeraha dabeetana waxaan soo qaatay cagafta inteeda dambe ayaan soo qaatay maxaa jiidi karaa baan dabeetana yidhi haddaad intaa dambe samayso maxaa jiidi karaa dameer faras awr magaranaysaa gaadiid nin walba wuxuu haysto inagu reeguraabana waxaan ugu talgalay amba dameer amba faras amba magaranaysaa dibi mid waliba qof waliba wuxuu haysto inuu beerta ku fasho dabeetna sidii baan ku wilgeliyey waxaa la yidhi carwadii sideedaad waa ti dhacday bishii shanaad bishii lixaad 2019 ayay dhacday dabeetna ka soo qayb galaya carwada wax soo saar leh ha yimaadeen dabeetna waxaan qaaday cagafta iyo gargarahan dabka marxinaya oo isagana sameeyey labadiiba waan geeyey dabeetna aniga waana wanka noqday dabeetna shahaadad ayay wasaaraddan maxaa yeelay bacamshtarigu ay siisay dabeetna shahaadaddii waan qaatay waanan hayaa laakiin si wax bajadoo dambe maan arag wax maalgelina maan arag balkan waxaa haystay axmed muumin ayaa haystay markaa beeraha ayaa hayey dabeetna wuxuu yidhi bal waan ku iman doonaa siduu lahaa waan ku iman doonaa ay waqtiga ka dhaco deesna waa shaqadii lagaga ruuxiyey in badan baan sameeyey waxaan samaynayay 7 bilood baan ayaan la daala dhacaysaa laakiin 6 beerood baan ku qodo bilaasha oo duuban waxay ku yaalaan maxaa banka weyn waxay ku yiraahdaan masallaha waxay ku yaalaan airportka dabadiisa beer wax ma soo saaray 2 jeer baa la jaray mid walba midna waxaa la jaray 2 jeer midna waxaa la jaray 3 jeer oo mar baan inuu qodin si kastaba ha noqotee waxa ugu baaqay xukuumadda iyo ganacsatada reer Somaliland inay garab galaan si uu qabto waxqabadka mid ka badan ma garatay marka waxa weeye madaxweynuhu intuu noo yeedho oo qaato hindisahayaga iyo macnahayaga anaga ka jeedinayna wax soo saarayna islahana maalgeliyo oo waxana la qabto amba dahabshilahaado amba talsoomaado amba bacamshtariga ahaato waxaan jecelahay in la maalgeliyo maskaxdeeda kor loo qaado intaasoo inanoo arday baan baraynaa Shaafici Shaaciye Bulsho TV Hargeysa